daawade ku soo dhawo channelkeena caafimaadka Dr. Kudaawi. Maskaxdu waa xubinta ugu muhiimsan ee jirkeena. Haddii ay waxyeelo yar ay soo gaarto maskaxdeena, waxa dhibaato ay soo gaaraysaa sida aan u fikirno, wax u xasuusano, dareenkeena. Khubarada saynisku waxa ay soo jeedinayaan in isbedel kooban oo habnololeedkeena ay kor u qaadi karto aqoonteena, awoodeena iyo xagga kartidaba oo ay sal u tahay maskax caafimaad qaba. maanta waxaan kuu sheegayaa inaad iska joojiso haddii aad samayso 7 arrimood oo maskaxdaada u keeni kara dhibaato. Marka hore, haddaad ku cusub tahay channelkeena, fadlan subscribe leh, share garee, isla markaana qaybta hoose waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. Qodobka koowaad waa quraac la'aanta. Waxaa laga yaabaa inaadan quraacan adigoo la dagaalamaya waqtiga, meel ordaya, jiifa ama miisaan dhimis ku jira ama aad weedo quraacda. Dad yar ayaa laga yaabaa inay ogaadaan xaqiiqada ah in haddii aad quraacadan helin ay dhaawacayso maskaxdaada. Subax walba marka aan toosno hurdadeena, jirkeena waxa uu u baahan yahay nafaqo. Dhowr baaritaan ayaa sheegaya in carruurta sida joogtada u quraacda ay si fiican u firfircoon yihiin marka ay joogaan iskuulada. Haddii aadan quraacan subaxii, taasi waxay kuu keenaysaa inay hoos u dhacdo heerka glucose-ka ee dhiigaaga, taas oo si xun u saamaysa shaqada maskaxdaada. Ku dhawaad 80% maskaxdeena ayaa biyo ah, sidaa awgeed maskaxdu waxa ay u baahan tahay biyo ku filan si ay dhaqso ugu fikirto. Sidaas awgeed waa muhiim inaad wax cunto subaxii. Cabidda biyo badani waxay faa'iido u tahay maskaxdaada iyo jirkaaga, waana sababta ay khubarada caafimaadku ugu taliyaan inaan cabno biyo 1 litir ilaa 5 litir ah maalintii. Cabidda badan ee biyuhu waxay soo celisaa fluidska ama dareeraha jirka bini'aadamka. Biyo la'aanta qofku waxa ku dhaca maqaarkiisa shrinkage ama oo dhadha, oo qofku jirkiisa wuxuu noqonayaa mid qalalan. Qofku ka biyo cab badan yahay wuu ka caafimaad qab badan yahay. Sidaa daraaddeed, khubarada caafimaadku waxay nagula talinayaan ugu yaraan 2 litir oo biyo in la cabo. Qodobka labaad waa goor dambe oo aad seexato ama soo jeedka badan xilliga habeenkii. Dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in la joojiyo soo jeedka ama dhafarka xilliga habeenkii sababtoo ah waxa ay horseedaa caafimaad darro xagga maskaxdaada. Waxay dhakhaatiirtu ku taliyaan in qofku seexdo ugu yaraan 8 saacadood habeenkii si maskaxdu u noqoto mid caafimaad qabta. Hurdada fara badan waxay jirka u soo celisaa tamartii iyo awooddii ka baxday. Hurdada waa caafimaad. Qofku hadduu shaqeeyo shaqooyinka faraha badan wax kaga loo tamar, si tamartii ay ugu soo laabato waxaa loo baahan yahay qofku inuu seexdo. Waxa weeye hurdo ku filan qofku uu seexdo. Qodobka saddexaad waa isticmaalka sonkorta badan ama quudashada cuntooyinka ay sonkorta ku badan tahay. Qaadashada sonkorta xad dhaafka ah ee muddo dheer waxay khalkhal gelisaa awoodda jirkeena, waxay saameyn u geysataa qanjirka ganaca, kana joojisaa soo deynta dheecaanada insulinta iyo glycogen. Insulin oo shaqadeedu tahay yareynta heerka sonkorta ee jirka, halka glycogen shaqadeedu tahay kor u qaadista heerka sonkorta ee jirka haddii ay glucose jir ku yaraato. Haddaba, qaadashada sonkorta badan ama cuntooyinka ay ku badan tahay sonkortu ee loo yaqaan carbohydrate ama tamarleydu waxay shaqo gab u horseedaan ganaca, taas oo sababta in ganacu aanu soo deyn dheecaanadii muhiimka ahaa ee uu jirku u baahnaa. Haddaba, haddii aan la soo deyn dheecaanka insulinta, waxaa kor u kacaya heerka sonkorta ee jirka, taas oo horseeda cudurka macaanka ama sonkorowga. Cunidda macmacaanka badani sidoo kale waxay hoos u dhigaa xusuusta iyo garaadka maskaxdeena. Ma jirto meel lagu ammaanay cunista sonkor badan marka laga reebo xaddiyada uu jirku u baahan yahay. Qodobka afraad hurdo badan, gaar ahaan subaxii in la seexdo. Dad badan ayaa ka walwalsan inay waqti yar jiifsadaan xilliyada shaqada. Waxaa muhiim ah inaan la caadaysan hurdo badan. Dadka waaweyn badankoodu waxay u baahan yihiin 7 ilaa 9 saacadood habeenkii, inkastoo in yar oo ka mid ah dadka waaweyni ay u baahan yihiin 10 saacadood oo hurdo ah. Hurdo ka badan xaddigii loogu talagalay qofka bini'aadamka waxay u horseedi kartaa cayil, miisaankiisa oo kordha, madax xanuun, dhabar xanuun, garaadka maskaxda oo yaraada iyo cudurrada wadnaha. Daraasad la sameeyay waxaa lagu sheegay
in hurdada badani sababto metabolic issue oo ah khalkhal ku yimaada burburinta cuntada ama digestion systemkii xubnihii waxa ku dhacaya cudurro loo yaqaan GIT disease. cudurrada GIT disease ka la yiraahdo badanaa waxay ka dhashaan hurdada faraha badan oo dheefshiidku uusan u shaqayn qaabkii la rabay ee saxda ahaa, maadaama cuntada loogu talagalay xubnaha dheefshiidka inay time ama waqti loogu talagalay ay ku jiraan caloosha oo kale 3 saacadood ilaa 4 saacadood si uga qayb qaato digestionka proteinka baa waxa dhacaysa metabolic disorder, maadaama xubnihii ay yihiin kuwa hurda cuntadiina iskaga jirto qofkii waxa ku dhacaya cudurro loo yaqaano GIT inflammation ama caabuqyada ku dhaca elementary canalka oo laga soo bilaabo mouth from anus ama mouth from anus oo ilaa rectumka malawdka. qodobka shanaad waa cunista cuntada marka aad daawanayso TV ama computerka. cunista cuntada adigoo daawanaya ama isticmaalaya TV-ga ama computerkaaga taas niyadaada waxay siinaysaa inaad ku jirto raaxo iyo farxad, balse daraasado cusub ayaa muujinaya in dadka sidaas sameeya badanaa ay ku timaado hoos u dhac garaadka maskaxda iyo xusuusta oo yaraata. daraasadan waxaa lagu sheegay inaysan wanaagsanayn inaan TV-ga ama computerka la isticmaalin marka aad cunayso cunto si xubnaha jirkaagu u soo daayaan dheecaanadii loo baahnaa. isticmaalka computerada ama TV-yada iyo dhammaan waxyaabahaas oo dhan waxay hoos u dhigaan in qofka maskaxdiisa ama hormonal productionkii dheecaanadii la soo dayn lahaa ay hoos u dhacaan, maadaama maskaxdii ay ku mashquulsan tahay waxa weeye arrimo kale. cuntada marka la cunayo waxa loo baahan yahay qofku inuusan daawan si xubnaha jirkiisa ama qanjidhada muhiimka ah u soo daayaan dheecaanadii ka qayb qaadanaya dheefshiidka cuntada. qodobka lixaad waa inaadan buste ama maro iska saarin madaxa. waa inaad buste ama maro iska saarto madaxa marka aad seexanayso ama aad hurdo, taas oo ay dadka qaar u maleeyaan inay ka helayaan diirimaad iyo raaxo, balse isticmaalka bustaha ama maro ee aad saarto madaxaaga xilliga hurdada waxay kordhinaysaa isticmaalka carbon dioxide ee afka qalaad loo yaqaano carbon dioxide oo ah qashin uu jirku soo saaro. oxygen ayaa la ogyahay inay tahay ama muhiim u tahay shaqada maskaxdeena, wuxuuna dhaawac soo gaari karaa unugyada jirkeena haddii aysan helin oxygen ku filan. habkani waa caado ay isticmaalaan dad badani laakiin aan lagu baraarugsanayn marka laga hadlayo caafimaadka maskaxdeena. oxygen faraha badan ee gelaysa jirkeena ama maskaxdeena waxay waxyeello u tahay maadaama qashin tahay jirka waxay u tahay waxyeello maadaama uu jirku u baahnaa oxygen ku filan. qodobka toddobaad ee ugu dambeeya waa isku celinta kaadida. qodobka toddobaad ee ugu dambeeya waa isku celinta kaadida. cilmi baaris kala duwan waxaa lagu sheegay in ay waxyeelooyin badani ka imaan karaan arrintan oo ah isku celinta kaadida. dadka inta badan sida damaca isaga indhatira inay kaadiyaan waa xanuun kaga dhici karaa kaadi haysta iyo keliyaha. sidoo kale ugu dambeyn kaadida ayaa dhibaysa xubnaha kaadi mareenka. waxaa kale horseedaa in muruqyada qaybtood ay istaagaan. isku celinta kaadidu waa caado aan fiicnayn sababtoo ah waxay horseedaa waxa loo yaqaano UTI urinary tract infection oo ah caabuq ku dhaca kaadi mareenada. isku celinta kaadidu waxay horseedaa in muruqyada kaadi haystu ay faaxaan oo qofku kaadida ceshan waayo, ugu dambeyntii soo noqnoqoshada kaadiduna badato. isku dhejinta kaadidu ama isku celinta kaadidu waxay kaloo keeni kartaa in dhagaxaan ay keliyaha ku dhex samaysmaan maadaama kaadida inta badan ay ka kooban tahay macdano sida uric acid iyo calciumta loo yaqaano oxalate. daawadayaal, daraasadan waxaan ka soo xiganay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. fadlan si aad ugu xirnaato channelkeena subscribe dheh
isla markaana qaybta hoose waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. aad baa u mahadsantihiin.